لا بلا بين فلان لا سايبا تاريخ دكو بيغنتو لما انتين صباحني مركي لا بلا بين فلان لا سايبا تاريخ دكو بيغنتو لما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلامي بلوين تا رير بودلان كل نقل ألبرتا عاوة بابو فرح سنة هاي ومركي يجوه الرئيس الأول شيء دورتنا أنكس على ماضو إدمنتون هدنا أنكس وقت قالوا فرحت سنة جوردي شن إلى واتنات بودلان عاوة أنا كخاصة هان وحنا هجبر أساسية وحنا وضالبة معناها حفلات أنكو هرية بودلان بودلان واشن إلى واتين جرستي وأنا قاضي ما شاء الله تبارك وحنا ملينا وحقبت كيو وحيابها ما عرفتينا بدو سنتين أنا قبضت وحنا موجنا هاي لبض بلاد مركو وحنا ربا إن معناها وحيابها أنكسو أركي بودلان دولة وقامنا يحفظ الله سعيد عبد الله الدني iyo dawladiisa wixii ay ka qabteen inaan waxyar ay ka taabto haddaan ku horeeyo waxaan ku bilaabayaa doorashada waxaan u maleynayaa kulay inaan aad horumar aad u ballaaran ka sameynay dhanka doorashada haddaan nahay reer Puntland haddaan nahay reer SSC waxaan u maleynayaa qof iyo cod Saciid Cabdullaahi Dani xafidullah ما أردت ماشي جارسية أد إني وعنت هاي ما أردت وحيابه كقبت دور الشدي وحن أنا جوز تاجنا لو كن كوي لبعضكي دور الشدي كان على قدر وفين إلى أي ما أردت سيد عدك اللي بيبي إنه مدحوينين حفظ الله الباب ولا بقوا جراعي ولها عدك السياسة كان بيننا وقت كان عمل أي سمايان معنا آد بنوهم بلينا يا دولتك وقامنا سعيد عبد الله الدني من اللباب أمنية وحنا ملينا كليبا ونجح وقال بدنا على بلاد هديرتان وحنا تعلمنا لقيه في الدينسان سي أمارة الدولة دي لو حين قبضتي أمارة الحكومة كذا نبتع عن الكرشة كيو أمنية سعيد عبد الله الدني انتو نقابل مارتي كهر الحكومة شيء لكن انتو قبضتي جدك سوق بسي أمنية سيدو مارتي وسميه إذا ماذا سيدو تيجي مارتي قروا كبحثا إلا يبصاص إلا يقرر ميل والبحر مريسا نبض كتب يسا قصوا نبنيسا مركوا مارتي وحقا وفرحات دولتين سيد عبد الله يدري وقبطي من الرابع من كهلا وحيتها هي باسمها waxaan u malaynayaa sida loo dhisay garowe qardo boosaaso gaalkacyo macnaha waa wax amazing aan laga hadli karin quruxda macnaha jidadka sida uu dhisay xafiisyada uu dhisay macnaha dawladeena aad baan ugu mahadinayaa sida macnaha qabadka ay ka qabatay maaragtay jidadka iyo meel walba caafimaadka inta isbitaal oo garowe maanta ka dhisan laba bilood baan kasoo noqonahay macnaha banaanka agama baahanaysid hadday noqoto bahalka iskaanka la isgeliyo wax walba hadday noqoto aad buu u horumariyay dhanka caafimaadka wax walba macnaha aad buu uga shaqeeyay madaxweynaha xafidullah Saciid Cabdullaahi Dani hadday noqoto dhanka waxbarashada waxaan u maleynaa haddana reer SSC waxaan u haynaa madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani macnaha waxaan leenahay hambalyo inta aad qabatay oo maartay caafimaadka waxbarashada wax walba marka waxaan u maleynayaa warmigu raacsantiin Saciid Cabdullaahi Dani inuu soo noqdo warmigu raacsantiin codka in la siiyo wuxuu qabtay buu maleynaysaan inuu ka badan qaban doono waxaan anagu fariintaas waan gudbi doonaa madaxweynahan caawa soo hadli doonaa haddii ilaahay raalli ka dhigo aadna ugu faraxsan yahay inuu maaragtay kala qayb qaato xafladda marka waxaan u hambalyaynayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dowladdeena waxaan inoo halmaam hadal kuma jiro inaan salaamo madaxweynaheena Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash ra'iisul baarlamaanka Cabdirashiid Jibriil kulli waxaan leenahay wasiirada kulli waxaan leenahay salaan intaan idinka wada gudbinaya caawa anuu idinka mas-uula reer Edmonton waxaan leenahay guul iyo gobonimo ha guulaysa marka u horeysa waxaan u hambalyaynayaa dadkii isku soo dubariday xafladan qiimaha iyo qaayaha badan بسم الله الرحمن الرحيم مركب ورئيسة وحنا سلام يا دمان جالية سوت تبد عاوة هلكا كندا
waxaan si gaar u salaamayaa inta soo ajiibtay iyo inta soo qaban qaabisay dhammaantiinba waxaan ku faraxsanahay inaan caawa la soo qayb galo sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Puntland runtii oo ah maalin qiimo gaar ah u fadhida dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ahayd maalin duruufo jiray dalka markaa haystay awgeed iyo walaahow jiray darteed kadib midabada loo aasaasay maamul Soomaaliyeed oo saldhigiisu yahay federaal oo ah kan aan hadda maanta Soomaali haysato una rajeynayno inuu sii faraaro waxaan si gaar ah ugu hambaleynayaa jaaliyadda intii la dhabar u ahayd muddadaas dheer iyo ka horba Puntland iyo horumarka maanta ka jira iyo meesha ay soo gaartay qayb weyn ka qaadatay naf iyo maalba muddooyin kala duwanaa iyo heerar kala duwanaa ay soo martay waxaan si gaar uga mahadcelinayaa jaaliyadda reer Canada isgarab taageen dagaaladii iyo colaadihii gardarradaha ay lagu soo qaaday dadka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood iyo dadkii ku barakacay iyo sidii dadkaas loogu celin lahaa guryahooda dadaalka ay ka qaateen oo inaga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale inaga mahadcelinayaa sida joogtada ah bulshadiina u garab taagantihiin mar kasta runtii Puntland maanta 25 sano kadib waxa ay ku tallaabsatay tallaabooyin muhiim u ah sii socoshada dowladnimadeeda iyo adeegida bulshadeeda kuwaasoo ah nidaamka dawliga dimuqraadiga ah ayay 25 sano kadib markii ugu horeysay golayaal deegaan doorasho qofka iyo cod qabatay haddana u madnan tahay inay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka qabato runtii dhiirigelintiina iyo dadaalkiina iyo mar walba gacanta weyn ee aad ka siisaan dadkiina gaar ahaan maamulkiina iyo annagaba waan inaga mahadcelinaynaa qof kasta oo halka fadhiya oo qofka ugu yar xataa hadduusan howlo waaweyn ka qayb qaadan laakiin gacan ka geystay qoysaskiisa iyo qaraabadiisa halka jooga noloshooda siduu kor u qaadi lahaa waxay nooga dhigan tahay Puntland wax taray ama Soomaaliya wax taray waana abaal aan ii hayno khaasatan jaaliyadda Canada oo jaaliyadii ugu horreeyay reer Puntland oo xilliyadii adkaa runtii gacanta weyn iyo garabka weyn ka soo qabtay markii jaaliyadaha qaybtooda aysan jirin si gaar ah ayaan inii salaamayaa reer Canada runtii waa magaalo aan malaynayo dad fara badan oo asxaabnahay ay ku nool yihiin waxaan inii rajaynayaa horumar wanaagsan waxaan inii rajaynayaa inaad maaragtay dalkiina aad arki doontaan oo horumar ballaaran gaaray annagana waxaan rajaynaynaa oo sharaf noo ah inaan maanta inagala soo qaybgalno xafladiinnan fursaddaasaan siiseen oo inaga mahadcelinaynaa garab istaagiinana mar walba u baahannahay waxaan rajaynaynaa dadaalka aad mudeen inaad sii wadaan waxaan ku rajoweynahay haddii ilaahay ka dhigo inay Puntland oo deganaansho iyo horumar iyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn wanaagsan gaarta dowlad u noqota muunad inta kale ee Soomaalida laga dayday inay noqoto iyo dhammaan geeya Soomaaliyeed aan u rajeynayno deganaansho iyo xasilooni iyo horumar wanaagsan iyo nidaam federaal oo hirgala dadkoo kala nasta oo maaragtay aamina oo noloshooda wanaagsan dib u dhisa runtii waan ka xumahay inay xilliyada wanaagsan aad jeclaan lahayd in ehladiina la soo qaadataan oo timaadaan inay weli Soomaaliya qeybaheeda ama meelaha qaarkood weli ay ka jiraan colaado kalifaya inaan maaragtay isku socodkii iyo isu horowga uusan meeshii daba gaarin laakiin waxaan ugu bishaareynaya insha Allah Puntland wadadii saxda ahayd in cagta saartay dhibaato kastoo la soo maray in laga gudbi doono isbedelku waa xanuun badan yahay caqabaduhuna waa badan yihiin laakiin waxaan ku kalsoonahay idinka gargaarkiina iyo garab istaagiina iyo dadaalka dadka gudaha joogaba in la gaari doono meel lagu nasto lagu nagaado aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi inkastoo dadkii lagu dambaysiiyey oo ay u yidhaahdeen marka horena shanta horaad ku jirtaa barashadana ay saareen ay yidhaahdeen waxaa ka hadli oo waxaa ka hadli oo ka ahadan oo siyaasad hargeli siyaasaddanana garanayba waxay tahay runtii oo haddii la hadda siyaasadda sheeg ma nabad ka hadalbaa ma ka khaldan tilmaanbaa ma ummadda wanaag u sheegbaa ma xaqa iyo diinta iyo waxa
إلهي كنت المام بقى ما تلمان القرآن اللي أساسات على واحد سيكا طبعا حالي ولد أحمد صوتي يعني اللي يرى ما ولده ده جوز أبو سلطان كالجايو هذا ماشي من أسوار كردوان تعين وحال سيدي عندنا الشعب أنا جاي سفيني أما صدق بس القرح بس القرح والله ما يعمل مكروه حاجة لكن ليس هذه اللوية كان لما يكون خلية قلت أميكو أنا أحيانا وضي خاتمان حاول لي بين وضي خاتمان أميكو أنا أحيانا وضي خاتمان هاي السامع الأشياء ركع لما أستينا إنتي بكوتو شوية كو أستيسيني تدري يبغى قال وحتى ما يدور ولا شغل مش شغل حمار يا سامع أنا يساري مرة نروح إسلامه خيار منهم كتاليون إسلام ما كتاليون أنفع يا ماما يومنا كشرة يوم تذكر وناك فرع ومع كذا خير كل ريال مرنا لمن أجون محمد علي تطير بكرنس ولمن سؤولين لمن سؤولين وسطنا سكسر مرنا لمن أجون أنا فاضمان أنا فاضكنا وأنك سكت عليه كبيرة تذكر لواء تذكر جيدة مرنا لمن سؤولين أنا فاضمان ضميننا العاسى سرت لابو عسكريو مرنا يا بحينيو ضميننا العاسى سرت لابو حرايه روح عطا ايجا يريد فران وحا يرماها ما اسرار طاهي دبعتها مليئه نكا روح عطا ايجا كنا كوسو سلام أنا أسرع يا دكتور أتكلم أنا أسرع مرة وضعت طبعانه إسكا أدلوا يو إتارجع شيئا مرة إلى بربارو أفرق هذا سقطكو جاية أبرارته مرة إلى بربارو أفرق هذا سقطكو جاية أبرارتيو جاية أبرارتو الله هو عن هذا أينك كعه لو هذا يمان مرة حتى ده لا تيتا لله لا دخل والله مارت لا هم كلامه وحال رياضة يديكو أفتري عثمانو قف كستانا إلكيو آخرة مربوطي قف كستانا إلكيو آخرة مربوطي آخرة مربوطي أما المرين لعادنا وأجن يبودو قولي لغو أستاييو إصلاح استراح كواتا أما وأول كنارتيو إبليس إنا لدر إستاح أركاس هو أساس قفكيس أراتيك لقبة الباب قوي قفكي تدير يسمو أرماها مات لماذا أرمي كبيرة جاو أفعل ما شئت أنا والله كجوال أدي الله حسنتني أنت عن كجدبو وحدونا إلا ليرانا إن الكلمة اللي ناخذوه
دليل مقدري مستقبل كنا وياه أنا مواجه وياه أنا جاي عبدالكريم يا محمد الله ركاسي هذا واحد من المعاني دليل هذا مشكلة الثانية وحوي دليل هذا صفقة رمي كل شيء واسرع منها لكن استان صفقة رمي ما فمشكلة الثانية سلام الله إذا كقاسية وكفامسية ومشكلة وين تستوي وحنا دليل يروي مستقبل كوادك مستقبل كذلك يكين دين يكين دك نفتي الموالد هوي شيء سنقول شغلاتنا ذكر هيك كلان هو هذا الجوع يكون تبدي الجوع يكون ملك الجوع وعن كل ما العليا one step ahead وأنا قاضي خاطر state أو Somalia أو ما مدحوينا سعيد عبد الله داني oo nooga waramay really horumarka ka socda Puntland aniga dhaqaalahan bartay marka waxaan fiirinayay really for the last 25 years gobolka Puntland oo in badan ay ku sheegtay hooyadii dalka Soomaaliya horumarku gaaray aan xaqiiqatan hadii aad quick Wikipedia aad samaysid waxaad arkaysaa Soomaaliya the lowest poverty rate meesha ka ah waa Puntland 27% ayay ka tahay faqriga markii la fiiriyo lower ayay tahay compared to the rest of Somalia oo ah 57% almost double and that was successfully to say so good governance your product of good governance maadaama faqriga markuu yar yahay waxay tusaale u tahay ummadii oo soo kabanayso oo horumar gaarayso taana waxay really waxaad mudan tahay dawladda in hal mar aad u sabcisaan thank you sidoo kaleeto haddii laga waramo dhinaca waxbarashada waxay tusaysaa Puntland national average literacy markii loo dadka wax qori karo ama dadka wax akhrin karo waxay tusaysaa national average kii inuu yahay Soomaaliya 55% but Puntland ay tahay almost 65%. boqorto yo bisin kanu qabanaya Puntland boqorto yo bisin kanu qabanaya birima weeyahan bayaan kaasi waa cadiyahay birimo weeyahan bayaan kaasi waa cadiyahay bilada iyo quruxda magaalooyinkeeda bilan bilada iyo quruxda magaalooyinkeeda bilan baraha kala dambayn bay ku beegsadeen baraha kala dambayn bay ku beegsadeen biladu hala siiyo bulshadeena reer Puntland bilada hala siiyo bulshadeena reer Puntland Puntland baraka haysan barwaha qaysan waxaan u bogay Puntland baraka haysan barwaha qaysan waxaan u bogay dhulkeeda ballaaran iyo xeebaheeda bilan dhulkeeda ballaaran iyo xeebaheeda bilan waa beerihii uduga beerihii aan dhaweyn la baxay waa beerihii uduga beerihii aan dhaweyn la baxay baldaha woo garoo wabilicdeeda quruxda badan baldaha waa garoo wabilicdeeda quruxda badan magaalada beecabo hoosaasa biila bal arag magaalada beecabo hoosaasa biila bal arag balkaalay ilaa booqo qarnigo baydku boqorku dego balkaalay ilaa booqo qarnigo baydku boqorka dego miyaad soo baratay bartahankeeda gaalkacayana miyaad soo baratay bartahankeeda gaalkacayana miyaad soo baratay bartahankeeda gaalkacayana dekadala
بهالار شي ما عرقتين دكة اللابيني لا بهالار شي ما عرقتين الله قراعد صوفه قراعد صوفه عندها بسوق بكسني دني مركان ظهورنا داد هاي دني مركان ظهورنا داد هاي نبت بدنا ويدو شيوه دولة ويساري بدنا ويدو شيوه دولة ويساري درادي يوم ما انت در البيسترين درادي يوم ما انت در البيسترين وحد ما شهد كيو نو عندك الليل وحد ما شهد كيو نو عندك الليل نبض لغو دير سده دايا داني دونودي نبض لغو دير سده دايا داني دونودي مركلي هلا دورتو داني وانا ديري مركلي هلا دورتو داني وانا دير سناي ويتاقين رير بلان ويتالله صدين ويتاقين رير بلان ويتالله صدين تاريخ ذات بيسة السهالو ينكو ذوعا تاريخ ذات بيسة السهالو ينكو ذوعا تكذيو إلى بور تاغنو قرحون تكذيو إلى بور تاغنو قرحون dadkii taabagaaliyay taagay waa Puntland dadkii taabagaaliyay taagay waa Puntland waa taajiriin gaarasha badan waa taajiriin gaarasha badan oo tilmaan qurxoon waa taajiriin gaarasha badan oo tilmaan qurxoon dhulkooda tallaabsadiyo waad ka gaarantayada dhulkooda tallaabsadiyo waad ka gaarantayada taajka hala saara Puntland way tallaabsatay taajka
qaybsan karahayne